السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهالكي أما ولا شيء ما جعش هاي أنت نقطة أرض هدي أتهاي أرض وجوهرية فصل كاجا هدي أتهاي شقالنا شقالياش وجوهرية dadku way ugu jecel yihiin maaragtay ama dadku u shaqeeyaan ay jecel yihiin ama wax kasta waxaynaysid dadku ugu horeeyaan noqotay hadii aad tahay cilmi baaris aad wadid hadii aad tahay qof kasta wax kasta qabanaysid waxa ugu muhiimsan sidee baa maaragtay lagu guuleystaa ama sidee baa waxa baranaysid si fiican lagu bartaa kaalinta ugu horeysa lagu soo galaa videogana inta aan ka hadli doonaa insha Allah marka daawasho waxna wanaagsan walaalkay ta ugu horeysa ee durta doono waxa weeyaan walaalkay waxaan ogsoonahay kulli waagi aan wala yarayn ميجرين أما ميجرين قف سكول كسوق فرحسن وجعل سكول كتجي dadka dhibaatayal badan baa iskoolka ka soo dul gaartay dhibaatayal dad qaar koodna dhibaatada oo ku sii korodhay dadna waxay kaga baabaaday yaraantii oo daayimka si fiican bay u bartaan mid dad qaar kood ilaa ma waxa arkaysa waqtigan aan la hadlayo amba da'day doonaan ha joogan iskool marka la soo hada qaado isleeyay waa ka hadhay iskool waxba kama garanayso iskool dad baa lagu talagalay iskool dadka doctoraga lagu talagalay iskool hablaha baa lagu talagalay iskool ragga qaar kood baa lagu talagalay iskool waxa markii ka sakaniyo jabay arkaysa dadka waxaan leeyahay walaalahayga farinyaro kooban baan isoo gudbinaya waxaan leeyahay run ahaan wax kasta ma aragtaa waa run in jab ku jira wax kasta waa maskaxdeena maanta sidaad u fikirsid baad ku xiran tahay ma aragtaa waxyaabaha gaari karisid adigu maanta hadii istiraadid war waxaan ku soo guul daraystay laakiin guul daradaad maxaa keenay adib u eegtid waxaad arki karaysaa waxyaabo qaar kood inta kugu wacnaadeen waxaad arki karaysaa video waxaan kula wadaagay hadii aad ku dhaqantid intaad ma aragto wax kasto baranaysid aad ku guuleysatid insha Allah marka waxaan ku dadaalaynaa insha Allah wax kasto sidaan u fahmi lahayn hadii jibi ma kuliyay walaalkay insha Allah guushino soo dhawdahay insha Allah dadaalka aad ka wax kastana baran karaysaa wallahi marka ta ugu horeysay aan isdul taagin waxa weeyaan maanta la baranayo wuxuu doon ha ahaade laba shay loo baahan yahay shay ugu horeeya maanta ka soo qato tusaale inuu ay siiseen dadka videoga daawanaya ta koowaad waxa weeyaan waa waqtigiina ay siiseen maanta wax kale waxay leedahay laakiin waxaan rajeynayaa dhulka yar mirir waxaan la faa'iideeyo inuu insha Allah inta wax ka baratiin maaragtay inta waqti qaar kood wallahi waxyaabo badan ba maanta kullu mina maaragtay waqtigeena marka waxa ugu horeeyo loo baahan yahay maanta waqti weeyaan waxaan markaa wax baranayso waa waqti alxamdulillah maanta qofku marka iskool dhiganayaan waqti uu haystaayo laana hooyadii baa ayagaysa iskoolkii muu tagin baa leeyahay maanta aragta marka horta iskoolka dadku way wala tagaan ta mushkilad ma badanka waqtiga alxamdulillah wala wala tagaa wax kasta loo waxayna shaqo ha noqoto wala wala jooga talabaad weeyaan muhiimadan talabaad ayaa aad iyo aad muhiim ah talabaad qoro hadii aan maaragtay qolkiisa talabaadna waxa weeyaan waa foojignaantaada amba attention-gaaga farsiis amba focus-kaaga intee leegtay markaad wax baranaysid arinta waa muhiim weeyaan maanta hadii maaragtay qof aad tahay marka wax baranayo iskool Facebook hagan u yeelo telefoonkiisi WhatsApp-ki dhidhin uu qoraya waxa uu soo dhacayaan uu jawaabaya uu shaqeynaya uu jawaabaya uu shaqeynaya qofka dadka qaar kood way ku adag tahay maaragtay sidii waqtigoog maaragtay ay wax maaray oo keena wax la taaban karay maaragta waxa arkaysa waxyaabo yar bay waxaneen aniga idin bani la hadlay way igu dhacday taa laakiin markaan joojiyay waxa aan telefoonada iska xiray PC-yaasha markaan iska xiray wax kasta markaan waxanay focus-kayga si fiican u hagaajiyay aan siri si focus-kayga u maaran karaysa waxaan arkay darajayaal fiican iskoolka waxa noqotaa amba wax kale ha noqotaa shaqada imkaan wada ha noqotay wax kastaba ii fudaydaatay maaragta aan ku noqday qof wax uu doonayaba ha noqday focus-ka markuu hagaajisid wax ka fiican maaran karay maaragta oo noqonay qof ka mid ah dhaliya tawato ugu horeysa focus-keena weyn focus-keena cilmi baarisyaal waxay leeyihiin dadku 30 mirir ay focus-ka ay qaar kood ay leeyihiin maaragta in ka soo qaad maanta waxa dhiganaysa macallin baa wax macnaynaya wuxuu macnaynaya 2 saacadood baa loo leeyahay fasal labada saacadood 30 mirir baa la yar leedahay focus-kaagu ka baaya kadib waxa soo dhaadhacsa sheeko kala galaysa waxa galaysa hooyada aabba sheekadeedii gabadha jecesha sheekadeedii waa iska maqnaanaysa maaragta diyaaradda oo iska duulaysa marka dib u soo noqonaysa macallinkii oo waxyaabo tablo ku qoraa arkaysa oo adiguna dib baa saaxiibka weydiinaysa maaragta marka focus-ku waxa muhiim ah sidii dadka cilmi baarisyaal ay waxay noo sheegayaan walaalaheen siyaabo badan bay dadku iskool mid ma maaragta dad 30 mirir baa nigeri dad qaar kood waa saacad dad ma aragtaa waa 2 saacadood marka iskool mid ma laakiin waxa focus-keenu waxa muhiim ah had buu leeyahay taa kama waxa ka dhigan tahay qof kasta maanta wuxuu maanta doonay intuu barto focus-ka illimité maaha maanta focus-ku waa wax maaragtaa waqti kooban weeyaan wax kooban weeyaan marka haduu kooban yahayna sidee baan u maarayna focus-keena sidee baan u fahamnaa marka cilmi baarisyaal kale oo waxyeen iyagu waxay leeyihiin maanta cilmi baarisyaal ma kala leeyahay focus-ka hadii doonaysid amba wax kasta waxeenaysid intaad maaragta kamil bildarisid waxa la isticmaalaa maaragta 25 mirir baa wax la bartaa 5 mirir baa la nastaa haddana lagu celiyaa 25 mirir baa la bartaa
mirir baa la banastay sida marka 4 jeer ku wadid 5 mirir 25 mirir aw wax dhigtay 5 mirir aan istid 1 2 3 4 haddana yar bahalkii beeri 5 mirir aan isnisid waxa ka dhigtaa 15 mirir haddana 4 saa ku celi haddana 30 mirir ka dhig 5 mirir aan isnisid marka maskaxdaadu way degaysaa marka waxa arkaysa adigoo marka fujignatada si fiicnaanayso de wax mal xasuusanina dad qaar kood ba xasuusanayna walaalaheeno markii baagal wala marayay dad qaar kood ku xad gudbay ma aragtaa wax barashada oo extremist ku noqdo taana wax kale ma ahay qof markuu noqdo uu 24 u israad wax baro uu soo qaato dhagagagagaga oo 10 dhigto kadib waxa arkaysaa de wuxuu dhigto ku dhan qof iloobay amba wuxuu dhigto ku dhan brito la kama xasuusnaba amba maalintii taxaanka de kaalaba soo saar marka sida ku dhaqamto ugu horeysa waa focuskaaga weeyaan focuskaaga maare arimahan aan ku soo sheegnay ku daabac insha Allah talabaad aan soo taagi doono walaalkay waxa weeyaan waxa aad iyo aad muhiim ah wax kasto maanta aad waxaynaysid jacayl waa intaad u qabtid haddii aan maanta 10kan dhiganayo amba maanta shaqadan aan hayo nafan u hayn waxay doontaa ha noqotee de waxba ka maran milan dhalin karayo ma noqon karayo dadka ugu horeeya liana waxaan dhibaato igu tahay inkastoo maanta iskir jira marka dad qaar kood oo waxaan u waxaanay sida waalidkooda ugu raali geliyaan oo laakiin naf u hayn oo laakiin darajo fiican kana way jirtaa tawarun ma adigu hadii ma aragta aad doonaysid 100% intaad chance-kaaga aad u dhigtid sida uu noqon leeyahay ma aragta dadka ku guuleysanayo waa intaad waxaan jeclaatid jacayl dhaban waa intuu iska yimid maanta marka ay tid dadkii waxyaabo soo saaray adduunka wax ku soo biiriyay ma aragta ha noqoto tariigan ha noqoto ma aragta de kulliba dadka astronomiga garanaya mathematiga garanaya wax kasto cilmiga doonta ha noqotee maanta dadkii wax ku soo biiriyay waxa la ogsoon yahay waa dad aha intooda ugu badan waxaynayaan aad iyo aad u jecel waqti badan kaga dhulmay uu hayn bas u ekisi amba dad baa igeeriye waxa laakiin waxa markuu qalbiga uu kaaga yimido arruba u macnayn karaysa waxa doonto waa macnayn karaysa shaqadaada 100% waa keen karaysa marka talabaadna waa taawiyaan insha Allah walaalkay isku dadaal wax kasto waxaynaysid jacayl intaad ku beedhid laana maanta marka wax la jecel yahay waa la xasuustaa marka wax la jecel yahay lama iloobo maanta tusaale jacaylka jacayl de rag hadii la hadlo de kulliba wax xasuusanaysin gabadha xoog jeceshin ma aragta ama habluuna way ogsoyin nin ay aad u soo jeclaayeen ma aragta ma iloobaan laana jacaylku waa wax ma aragta Ilaahay nagu abuuray aan kaga faa'iideysan kareen wax barashada macala ma aragta marka isku day insha Allah waxaan wadid sida u jeclaan lahayd ma aragta badankana waxa la leeyahay ma aragta jacaylka waxyaabaha ku fudayn imka ka soo qad markay ardadu ay wax dhiganayaan waxay maadayaal badan ay dhiganayaan badanka lagu khalkhalaa waxa khalkhalku ka imanayda waxa arkaysaa waxna ku dhan inta waxba ku tarin ba u malaysa ma aragta de waxa leedahay faa'iido ma leh waxa ma taraya marka de haba yaraatay ma haynaysid malaakiin ma xanaa dhiganaysid markaad eeytid muhiimad u leeyahay maanta waxa dhiganaysaa maad ba dhiganaysaa maad function waxana ku dhan muxuu taraya nolosha caadiga muxuu ka taraa afad maanta badanka marka qof wax loo macnaynayo aniga garba marka wax lii macnaynayo hadii wax lii macnayn waayo wuxuu faa'iido leeyahay de haba yaraatee de maxaan ka bartaa waxan hadafka aan kaliya waa maxay weeyaan marka naf dhadhab ma yeelanay ma aragta marka waxa kasto aad dhiganaysid waa intaad ogaatid adduunka maanta de shaqaynaya haguu kaga yaala waxan aan dhiganayo kaba soo qad maad ba dhigata maad kana dhiganayo speciality-gan waxan muxuu adduunka u taraa de waxaad arkaysaa in kaba soo qad maad ku inta waxan taro diyaarado wax ka ciyo waxyaabahan kala waxeeyo informatiga hadii aad dhigatid maxaad la taaban karaya markaad aragtid waxan aad taabatid arunta aad ka aragtid ama maskaxdaada ka dhaadhicisid waa jeclaanaysaa jacaylka maaga markuu ku yimidana de waa soo sheegno mi ilooysid amba xasuusnaanaysaa taa waa talabaad insha Allah tasaddexaad aan doonayo amba taafraad aan isu taagayno waxa weeyaan wax kasto la waxaynaya waa lagu guuldareysaa guuldaradu waa wax waajib ah walaalkayo marka wax kasta waa ku guuldareysanaysaa ma aragtay hadii aad jeceshahay guuldayaar badan baa ku imanaya kaba soo qaadnikii tariiga waxaynayay waxa la leeyahay intaasoo jeer ay ku guuldareystay laakiin markii ugu dambeysay uu ku guuleystay liana markaad wax waxaynaysid intaad ka niyajabtid ma badanka waxa jira waxa la yiraahdo ma aragtay négociationska l'impuissance apprise baa jirta waxa ka dhigan tahay en fait maanta ka soo qad marka wax ku guuldareysatid mar labaad mar saddexaad hadii wax isleedahay wax ma karaysid dadka imika ka soo qad bag saddex jeer waaye de waxa leeyahay waligeed ma karay bag ama waligeed wax barashadii ma waxeen ama dad qaar kood ma aragtay markay wax ku guuldareystaan haba yaraata aniga ma qof kale ugeey waa la hadlay wax leeyahay ayaa saa waxaan karay aniga ma waligeed forfait oo si bixinaya ka soo qad imika badanka dad waxa jira marka mad la macnaynayo ala soo dhigo integral amba ma aragtay de som iyo wax sayay oo dadka vraiment hada wax marka u macnaysid am Soomaali qofku u macnaysid am waxyaabo kale uu iska fahmi karay laakiin uu
ka cabsoonaya maaragtay marka wax ku guuldaysatay cabsi badan baa imanay marka waxaan ku leeyahay walaalkayo taana ha ka cabsoon ogsoono maaragtay wax kasta oo ugu guuldaraysto mirihiis way soo socdaan marka guuldarada adkay ku celceli marka in yaro guul ay timidana ku faraxsano insha Allah intaana waa hanoo ahaato maaragtay dhowr kiire qodob aan doonay intaan kula wadaago maaragtay walaalkayo sidaad u noqon lahayd dadka ugu horeeya ama wax kasta ay qabanayaan waan ku soo salaamayaa waxaan isku ogsoonahay ama isku ballan qaadaynaa insha Allah intaad noqotid dadka ugu horeeya wax kasta oo qabanaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh